Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma doonaysaa inaad noloshaada wax ka beddesho? Noloshaada hadda ku jirtaa ma kula wacnaan weyday? Haddaba waxaan ku hayaa 4 qodob oo noloshaada wax ka beddeli doona. Run ahaantii, isbeddelku waa shay loo baahan yahay. Macnihiisu waxa weeye noloshaada hadda ku nooshahay inaad raadsato mid ku dhaanta. Dhan kastay doontaba ha ahaato, dhanka maaliyadda ha ahaato, dhanka aqoonta ha ahaato, dhanka firfircoonida ha ahaato. Ma ku daashay qaabkan aad u nooshaho? Ma nacday? Ma dhibsatay? Ma doonaysaa inaad sidan ka wanaagsan aad u noolaato? Dabcan jawaabtaadu waa haa. Haddaba 4tan qodob ila dhegeyso. Waxaan ku damaanad qaadayaa si 100% haddii aad ku dhaqanto oo noloshaada ku dabaqdo si maalinle ah in wax badan ay kaa beddeli doonaan. Waxa aayad quraan Ilaahay ku leeyahay in Allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim. Qolona Ilaahay ma beddelo iyagoon san naftooda beddelin. Isbeddelku ugu horreyn aduu kaa bilaabmaya. Haddaba aynu wada bilowno. Soo qaado qalin iyo warqad. Ku qoro beel dahab ah. Noloshaadana ku dabaq. Lambar 1. Ra'yiga dadka kale kaa qabaan yuusan saameyn kugu yeelan. Fiiri hadda la soco. Tusaale ahaan haddii qof maanta kugu yiraahdo waxaad tahay qof faashil ah oo nolosha aan wax ka qabsan karin, ha aaminin. Waa fikirkiisa, balse maahan xaqiiqo ilaa aad adigu aaminto mooyaane. Haddaad adigu aaminto, xaqiiqay noqonaysaa. Qofku wuxuu aamino oo naftiisa ka aamino uun buu yahay. Haddii haddaba hadalka dadka aad aaminto, run ahaantii waad ku darsanaysaa. Qodobka 2. Wixii kaa tegey ee ku dhaafay yuuna kaa hor joogsan inaad mustaqbalkaaga hagaajisato. Soomaalida waxay ku mahmahdaa wax tegey tigsimaad male. wax mar hore aad soo dhaaftay, khaladaadka ha dhacay. Haddii aad kulba gocato ood xusuusato oo dib kugu noqdaan, waxaad ka faa'iidaysaa ma jirto. Keliya mustaqbalkaaga dambe ayuunba u daran tahay. Wixii tegeyna cashar baynu ka baranaynaaye inaanu ku mashquulno maaha, waayo waxba kama beddelayno taariikhday galeen. Qodobka 3. Haddaad kufto waa inaad kacdaa. Hortiin baa la kufay, ilaa iminka waa la kufaa. Dadka adduunka ugu taajirsan amba dadka adduunka ugu saameynta badani waa dadka ugu kufitaanka badan, laakiin way kacaan. Khasaare iyo dhibaato iyo faa'iido darro maaha inaad kuftaa, balse waxa doqonnimo ah inaad kici weydo. Isku day inaad kufitaankaaga casharo ka barato, balse halka aan sii jiifin. Qodobka ugu dambeeya, noloshaada dhan walba waa tahay xad u yeel. Wax walba oo noloshaada ah ku talax tegin. Tusaale ahaan, weligaa qof aad ha u jeclaan, waayo waxaa laga yaabaa qalbiga dadku wuu isbeddelaa. Siduu doono isku beddelaa. Waa kii Ilaahay lahaa waa kii Nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi nebigu lahaa alqalbu bayna isbaciin min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa. Qalbigu wuxuu ku dhex jiraa 2 farood oo faraha Ilaahay ka mid ah. Siduu doonuu Ilaahay ugu beddelaa. Marka qalbigani yahwi maa yashaa, wuxuu doonuu iska rabayaa. Shalay qof aad aamintay ood ku kalsoonayd ayaa wuxuu doona samaynaya. Marka noloshaada xad u yeel, wax walba ku talax tegin. Waxaa laga yaabaa in naftaada aad jacayl maxbuus uga dhigto khayrkaan ay ka xoroobeen. Ugu dambeyntii waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subscribe, like, share la dhaca. Assalaamu calaykum.